بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa 7 Abriil 2024 waxaan joogaa shaqal jawhar gaar ahaan qaybta kaydka biyaha Ramadan waxa weeyaan 28 laba maalmood oo kaliya ka dhiman Ilaahay subhanahu wa ta'ala baan ka baryaynaa sida uu inoogu soo dhameystiray inuu inooga aqbalo waxaan jecelahay hadda markaa walaalayaal inaan ila wadaago Ramadan kadib maxaan fali doonaa dhowr qodob baan ogaanaynaa walaalayaal number 1 waxa weeye wada masaajiddu ma guuriyaan quraankuna ma tagayo khayr oo dhan ma tagayo haday kitaab tahay haday tafsiir tahay ma tagayo إلهي سبحانه وتعالى وحي القيوم وحويان السقا أرلض الرولان وحريدونا لكن قفك التقي وين نقوي مركم حالي نقرب وحالي نقربه إن نصلا بشر رمضان أي وجود ذلك عبادة إلهي إن وجود ذلك رمضان كذب وإن نقول ورمضان تقول إلهي سبحانه وتعالى عابده لكن هو سنة كودن إلهي عابده جدك وجوها صونك وجوها يسوى صنع قرآن أخرسك وجوها صدقة وجوها لما نعمل قصو إلهي اللوان سبحانه وتعالى وجوها القول وحل الرباع إننا نقضى رمضان تقول إلهي سبحانه وتعالى عابده رمضان كدبنا كوي عبادة الجوكتية إلهي حين غيره وأنا حسد مثلا علماء يلاهين قف قادور رمضان تايمك إلا رمضان تيدا خير كسيد جوكتيو وحي دليلو تايم يلاهين الرمضان تنيمك لما تي لقى عقبالي كايك سماركس كلبا مركا سيدا حدو توليادو دقانتو أيك وحرانتا أقبلك رمضان تن إنك دماني سمات فإلهي سبحانه وتعالى إنك يلقوا waxaan marnaba iloobin dhammaan dadka muslimiinta ee adduunyada ku dhibaataysan Ilaahay inuu dhibka ka qaado waxa kale oo iyaguna ilaawin dhammaan dadka muslimiinta ee xanuunsan Ilaahay inuu caafimaad siiyo islaamnimadeenna iyo khayrkeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dilo adduunka intaan joognana ku cibaadaysta Ilaahay naga yeelo Ilaahay baan mahadinaynaa Ramadan inoo kamino insha Allah ku su'aalo qadarana naga dhigo si sanadka oo dhan la inoogu qoro intaas aan jeclahay inay nabadgelyo iyo wadaagi. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.